diyaarad ciidan oo hadda kasoo degtay magaalada muqdisho iyo muuqaalo sare oo laga helay madaxweyne farmaajo ayaa ciidankii soomaaliyeed ee ku tababaranaya xerada ciidan ee wadanka turkiga dalka dib ugu soo celiyey. kumanaan ka mid a ciidankii isbaarto ku jiray ayaa dalka la keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuuna madaxweyne farmaajo ku wareejinaya sheergareey oo ku faafaya dunida meelba ku tawaran muuqaalka beejkeena galwareed soo follow gareey sidoo kale youtube-keena galwareed tv subscribe soo saara waa hagaag aan ku bilaabo. diyaarad sida ciidankii soomaaliyeed cutubyo ka mid ah ee ku tababaranayay wadanka turkiga ayaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kasoo cagadhigatay daqiiqado ka hor. diyaaradan waxaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha muqdisho wafdi uu ka mid yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. ciidamadan lasoo dhaweynaya ayaa ka yimid wadanka turkiga wuxuuna madaxweyne farmaajo ahaa madaxweynihii hay faylashooda ku aadan tababarka ay wadanka turkiga u joogeen, iyaga oo faraxsan ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha waxayna markaasi aada ugu dhegeen madaxweyne farmaajo iyagoo marxabeynaya una mahad celinaya. ciidankan oo tababar ku qaadanayay isbaarta turkiga oo tababarkooda ugu dhammaaday bilo ka hor ayay ilaa iyo hadda dowladda turkiga ka warsugaysa in madaxweyne farmaajo uu dalbo in dalka lagu soo celiyo. xasan sheekh maxamuud oo halkaasi tagay dhowaan waa loo soo diiday sida dowladda turkiga ay ku cadeyday warbixin ay soo saartay iyadoo madaxweyne farmaajo uu ka dalbaday dowladda turkiga inay ciidankaasi gudaha wadan ku soo celido si ay uga qeyb qaataan howlgallada amni ee dalka looga xoreynayo kooxaha argagixisada. xaaladaha ku gadaaban tababarka ciidankan ayaa si weyn loo hadalhayaa waxaana madaxweyne farmaajo lagu arkay isagoo hortaagan diyaaradii ciidamadan keenaysa dalka. qaarkood ayaa sujuuda dhulka dhigay marxabo ay u qabaan dalkooda iyo dadkooda hooyo. madaxweyne farmaajo ay sidoo kale gacmaha ka shuminayeen iyagoo muujinaya farxadda iyo dareenka ay u qabaan in uu ahaa madaxweynihii u diray wadanka turkiga si ay tababarkaas heerka caalamiya usoo qaataan. ciidankan ayaa ku tababaranaya xerada isbaarta ee duleedka magaalada istanbul ee deegaanka isbaarta iyadoo madaxweyne xasan dhowaan halkaas uu ku booqday islamarkaana ay u sheegeen in wadaniyada qalbigooda ku jirta ee madaxweyne farmaajo ku shubay aanay marnabo ka suuli doonin, ayna diyaar yihiin inay dalkan difaacaan ayna ka xoreeyaan cadowga biyaha soomaaliyeed raba inay boobaan. madaxweyne farmaajo ayaa ciidankan kula dardaarmayay halkii ay kasoo degeen waxaana laga soo qabtay muuqaalo muujinaya iyaga oo si weyn ugu marxabeynaya madaxweynaha. wuxuu kula dardaarmay inay dalkooda difaacdaan kana hortagaan cadowga argagixisada ee doonaya inay markaasi si weyn arrimaha ciidanka uga shaqeeyaan, dowladda soomaaliyana ugala howlgalaan arrimaha ku aadan sida loo maareynayo xiisadaha kooxaha argagixisada gudaha dalka ay ka wadaan. madaxweyne farmaajo ayaa ciidankan u diray wadanka turkiga iyagoo halkaasi ku soo qaatay tababaro caalamiya oo looga golleeyahay sidii markaasi soomaaliya looga xoreyn lahaa dhibaatooyin kala duwan ee cadowga ku hayaan. xaaladaha ku gadaama nolosha bulshada soomaaliyeed ee la xiriira sida markaasi argagixisada looga adkaanayo ilaa iyo hadda dowladdan ma muujinayso tallaabada ku habboon iyo waxa uga qorshaysan ay qaadi doonto. marka la eego xaaladaha ka jira gudaha dalka soomaaliya iyo sida dowladda ugu baahantay inay yeelato awood, waxay mar walba u muujinaysaa inay ka qeyb qaataan xogahan amni ee markaasi la xiriira sida dowladda soomaaliyeed ay u heli karto awood ciidan oo ay ku howlgeli karaan saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya. deegaanada al-shabaab maamulaan waxaa daafaheeda ku sugan ciidan soomaaliyeed oo hadda diyaaro ah inay weerar iyo guluf hor la qaadaan. ciidankan magaalada muqdisho kasoo degay ciidamo lamid a ayaa ku tababaranaya wadanka eritrea halkaasi u joogaan tababarkii abid ciidan soomaaliyeed eritrea seedo. in ka badan 5,000 oo askar ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowaan ku booqday xerada ciidan ee ku taalla duleedka magaalada asmara isagoo halkaasi kula soo hadlay ayna u sheegeen inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacdaan.
madaxweyne farmaajo ay shacabka soomaaliyeed ku ammaaneen dhismaha ciidanka qalabka sida uu ku sameeyey sanadihii uu xilka joogay arrintaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay wuxuu kaga duwanaa madaxweynayaashii soomaaliya soo maray oo iyagu aan ku dheerin jirin inay ciidanka qaranka dhisaan. shacabka ayaa dareensan haddii ciidan qaran soomaaliya ay yeelato inay taasi markaasi u fududeyn karto bulshadu inay nolol heer sarreyda ku noolaadaan, wadamada dibadda ee soomaaliya cadowga ku ahna ay ka haybaystaan ciidanka qaranka, islamarkaana la soo celiyo awooddii libaaxyada geeska ee soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynihii hore ayaa ciidankan mar loo dardaarmay ku yidhi, tababarkaad soo qaadateen waxaad ugu dhaaratay inaad dalkiina iyo diintiina ku difaacaysaan. shacabka soomaaliyeed way idin wada fiirinayaan, isbeddelka aad la timaadaan ayaa laga warsugayaa. ha noqonina kuwa tababarka ay soo qaateen xashka la gala ee noqda kuwa ka soo dhalaala booskii lagu aadiyo. waan hubaa inaad tihiin geesiyaal qaran, waan hubaa inaad tihiin rag awooda inay cadowga soomaaliya la dagaalamayso cirib tiraan, laakiin marnaba madaxiina dhulka ha aadinina oo ka digtoonaada cadowgu sharqoolada oo idiin mareegayo si aad uga guulaysataan dhibaatooyin kala duwan ee la xiriira xaaladaha amni ee bulshada. marka laga soo tago in soomaaliya ay u baahan tahay ciidan awood badan oo al-shabaab iyo la dagaalama cadowga kale ee soomaaliya ay leedahay, haddana dadka soomaaliyeed ayaa diyaar u ah inay ciidanka qalabka sida ee tababarka heerka caalamiga soo qaatay ay garab galaan, iyadoo ay cabsi xoogan shacabku ka qabaan in ciidamadu ay waayaan mushaarkooda si ay markaasi uga hortagaan in dhagaraha argagixisadu ay u dabcaan. waxaa la aaminsan yahay haddii ciidanka uu u socdo mushaarkoodu inay taasi u fududeyn karto in niyaddooda aysan marnaba hoos u dhicin, ay marba ka dambeysa usii karaar qaataan inay qarankan difaaciisa u soo joodaan. madaxweyne farmaajo ayaa lagu ammaanay sanadihii lasoo dhaafay sida uu isugu xilqaamay inuu ciidanka qalabka sida wax badan ka kaalmeeya, gaar ahaan duruufaha ay wajahayaan ee dhinaca nolosha iyo sidoo kale dariiska hubka iyo wax walba oo sababi kara inay awood u yeeshaan inay dalkooda difaacdaan. xasan sheekh maxamuud ayaa laga sugayaa inuu halkaasi kasii ambaqaado dhismaha ciidanka qalabka sida tayeynta iyo horumarinta ciidankana waxay noqon doontaa min xasan sheekh maxamuud baal dahab uu ku geli doono haddii uu tafaa u xigto inuu sii wado shagareeyo xogahan qaybta falan gul wadaag rabtiin tan iyo kulanti dambana nabadgeliyo.